waxaad u jeediin nimankaad aad aragteen waa cili caamaashoodayo madasha halkaanna maanta waxaa lagu soo bandhigay in ka badan 1,000 askari oo qayb ka noqonaya howlgalka argagixisada looga ciribtirayo goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan ee dhaca gobolka Shabeellada Dhexe. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Muungab ayaa ciidamadan halkan ku abaabula qaybna ka ahaa mas'uuliyiintii muddo fog markaasi ka warqabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo xubno kale oo saraakiil ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna qayb uu ka yahay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar General Khalid iyo xubno mas'uuliyiin ah oo ka socda maamulka Hirshabeelle ayaa maanta halkan soo gaaray si ay markaasi kormeer iyo indha-indheen ugu sameeyaan ciidamadan xaquudirirka ah qaybna ka ah howlgalka lagu ciribtiraya argagixisada mas'uuliyiintan ayaa si wada jir ah waxay u sheegeen in ciidamadan xilligan markaasi qayb ka noqonayaan howlgalka waayihii argagixisada ee gobolka Shabeellada Dhexe markaas uu soo idlaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Muungab ayaa bogaadiyay ciidankan hanaanka ay halkan isugu abaabuleen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin howlgalka ka dhanka ah argagixisada waxaan socod ka soo bilownay Xaaji Cali raagaceelle dugsiga tababarka Qorilow maantana halkan xaluule oo degmada Warshiga ka tirsan ayaan taaganay mudane wasiir macwiisleedan arkaysid oo inta nabarka arkaysid gaarayso waa dadkii deegaankan waa beeraleydii waa irileydii waa lo'leydii waa geeleydii kuma jiro askari qof u diiwaan gashan laakiin waa dadkii shacabka ahay oo qoryahoodii qaatay oo doonaya inay ka qayb qaataan inay la dagaalanka argagixisada xoreynta khawaarijta inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida si dalka dhan looga xoreeyo argagixisada dadkan ayaga isxilqaamay abaabulkaas uu socday anigana waan kaabay geesta kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in waayihii argagixisada ee gobolka Shabeellada Dhexe ay markaasi soo idlaadeen ciidamadan xaquudirirkana qayb ay ka noqonayaan howlgallada culus ee markaasi argagixisada lagu baacsanayo inaad ka soo jeesataan horta xawaaleydan yartaa meesha inta ka soo horjeeday iyo warciisa ilaa warciis waxa kale waa saga imaanaynaa 100 wiil baan u baahan doonaa markaa kadib oo xagga ii raacda diyaar ma leeyahay wiilashaas mootooyinka wata waa hubaa inay soo qoqobanayaan ciyaalkan yarka wayna soo qabteen Sakariya Qaasim Bagax deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe